Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada janaalka Somali Tutorial. Fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar sidoo kalena muuqaalka inoo la garay. Maanta waa day 4 ama muuqaalka afraad wax walba oo na qabsado cilada iyo daahitaanka iyo wixii excuse muuqaalka horreeyay ayaan ku bixinay oo waxaan rajeynayaa inaad xeelad walba ka warhayso. sidii ahaataba aynu bilaawno casharkeena xalqadeena afraad iyo muuqaalkeena afraad Alibaba course iyo commerce. dabcan muuqaalka waxaynu ku baranaynaa how to make market research see loo sameeyaa emailada laga sameeyo kuma dheeraanayno waxaan rabnaa inaan bilaawno janaalkan ugu damay si aad noogala shaqeyso si uu u soo kabsado ama booskiisa hore ugu soo laabto qof walba subscribe uu yahay oo u gaar muuqaalkan like tarix oo ha hilmaamin muuqaalkan share garee Facebook Telegram WhatsApp any place marka aad awoodi karto weeyahay let's go. market research laba nooc bisa u sameyn kartaa labada nooc waa online iyo offline. aan ku kala sharaxo online marka la dhaho waxa u sameyn kartaa yani waxaad Facebook page qaybta marketplace ka tagi kartaa suuqyada online ka wadanka gudihiisa ka shaqeeya fiirin kartaa waxyaalaha marka ay soo gudbiyaan alaabaha ay keenaan lacagaha ay gadaan waxaas oo dhan aad qiimeynaysaa kadibna haddaad opportunity ama fursad aad ka aragto in waxa aad keeni karto lacagtay gadaan keer aad geli karto waa galaysaa isla online kan ku sii socono marka product research waxa la jiro market research ku kamid yahay product research waxa u baari kartaa Alibaba adigoo marka yani ka baarayo productiga marka Alibaba dhaxdiisa by qoraal iyo by image. dabcan koorsan theory ku bixaysa ha iga sugin in Alibaba aad ficil sameeyo laakiin afka ayaan kaga sharaxayaa si simple ah adina aad u fahanto adina ay ku wanaagsan tahay. marka by image u raadinaysaa by yani qoraalna u raadin kartaa marka market research maadane يعني qeybaha online ka TikTok Facebook meelaha wax lagu iibiyo ayaa markaa ka raadi kartaa productiga aad rabto inaad keento kadibna dadka keenan maxay leeyihiin mise qof Soomaaliya keento yani qiimaha kala gadaan waa maxay waxyaalahaas oo dhan soo baaraysaa waa soo ogaatay haddii dan kugu jirto waa keenaysaa laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego offline ahaan laba option waa sameyn kartaa meesha aad joogto tusaale degmada joogtaa degmo oo kamid ah gobolka Banaadir aniga hadda waxaan joogaa Banaadir qof walba meesha joogo buu sharaxayaa oo hadda meel kale wax ma ka sheegi karin ka dhigay meesha aan ku noolaa arkay ayaan ku sharaxayaa gobolka Banaadir joogtaa almost 20 degmo gaar ah marna degmo kamid ah joogtaa degmadaas ayaa rabtaa inaad ganacsi furto waa inaad baxdaa degmada suuqeeda waa inaad tagtaa waxyaalaha aad rabto inaad keento meelaha lagu gado hadii wax electronics yihiin waa inaad marka meelaha lagu gado aad tagtaa kadibna marka electronicska dadka gado qiimaha ay gadaan waxyaalaha update ma hayaan wixii hore ma ku dhigayn waa inaad isha soo qiimeysaa waa inaad soo wareegtaa okay xaafadda rabta inaad dukaan yar ka furato xaafadda waa inaad fiirisaa alaabta aad keen rabto hatta dukaan haddana awoodin guriga aad dhiganayso xaafadda ma lagu gadaa haddii lagu gado imisaa la gadaa qofka gado yani qof dabeecad nuucuu leeyahay qof macaamiil soo jiidi kara miya qof yani marka laga faa'iideysan karo macaamiil laga soo jiidi kara miya waa inaad kala ogaataa danta kugu qasbayso marka importantiga marka uu noqono muhiimadda dhan waxay tahay marka inaad baartid shaygan adiga aad keensan rabto meesha ma lagu gadaa haddii lagu gado haddana lagu gadin horta waa wajahana soo keenaysaa hadduu soconayo meeshan aan lagu gadin waa important laakiin haddii lagu gado way si kala baxaysaa waxay u kala baxaysaa dadka gado يعني dad marka macaamiisha supplierka ku fiican oo marka yani customerska si fiican u wanaajiyo oo aan waxba laga qaadi karin ama dad laga faa'iideysan karo waay okay qiimaha gadaan qiimo ka yar ma geli kartaa aadi hadda qiimaha gadaan qiimo ka yar geli karto darna ay kugu jirto lacagna ka heli karto waa gadaysaa marka almuhiim market research inta aadan masarkaar marka soo sameysato oo Alibaba aad timaad intaan alaab iska dalbid waa ina inta ku sheega sameysaa by online iyo by offline intaba u sameysaa waa ina u sameysaa si aad online ugu sameyso waa inaad aadameeraha dadka online alaaba ku iibiyo marketplace oo xoog badan TikTok ku xoog waa inaad wax ka soo ogaataa haddii dukaan aad furto meelaha laga furto suuqyada iyo xaafadaha waa inaad ka soo ogaataa haddii guriga inaad ku iibiso aad rabto alaabtan ma soconaysaa dadka rabo yani interest gareeyo alaab la gadan kara ma tahay oo yani alaab guriga hadaa dhigato marka ku soconaysa ma tahay intaas oo dhan marka ogaato waxay ka saacideysaa in waxa marka natiijo inay leeyihiin in kala aad kala og tahay inaad keento laakiin intaas oo dhan adoo ogaan hadda inta Alibaba wax laga gataa dhaho iska imaado shaygan iska la hadasho supplierka iska dhiishiis iska la gadato dan kugu ma jirto marka waxaa rajeynayaa muuqaalka aad fahamtay biyo oo socda muuqaalka ardayo haddii weli aadan janaalka subscribe saarin waxaan si sharaf leh kaaga codsanaa inaad janaalka subscribe noo saarto nagala qayb qaadato soo noqoshada janaalka inuu back up uu sameeyo booskiisa iyo positionkiisa uu ku soo laabto si uu u soo noqon waxa u sameyn kartaa inaad share gareyso like aad saarto asxaabtada la wadaagto by linki iyo markaa by title qaabka markaa aad awoodi karto marka saaxiib ugu dambeyn waxaan ku leeyahay market research sameey online iyo offline u sameey qaabka aad rabto
يعني هديتها دكان فرطو هديتها إن جروه كيبسو هديتها يعني إن مركا يعني مالك أنا كيبسو حافظها يوحنو عصا أنت بوحكو قصبنت أنا سميسو ألعبت ماشي اسم لقيها لا وامي وكوفي عنتا كانسو ولقيها لا سو معها dadka keenan ma dad yani lala shaqeysan karo marka macaamiisha ka soo jiidin karto ma dad qiimaha ay gadayaan haday saa'ita qiimo ka geli karto ma dad yani alaabta ay keenayaan naftirkooda xeelad fiican u haysanin oo adiga aad ka aqoon badan tahay waxyaalahaas oo dhan waa la isku gaadaa marka ugu dambeyn waxaa ku leeyahay xalqadan noogu xigi doonta ayaan sharixi doonaa tanna meeshaas aan uga tegi doonaa du'aaleed insha allah wixii su'aalan whatsappkiga la soo xiriir aad iyo aad aan ku salaama waxaan rajeynayaa inta aan ka codsaday inaad sameyso janaalka like aad saartay subscribe aad saartay aadna share garaysay tan iyo muuqaalka xiga sidaa ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh